الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد انت دبديد ولا ليال waxyaabaha naftu ay u baahan tahay waxa kawka ah Allah subhanahu wa ta'ala in lagu xidho in qalbiga la jilciyo in nafta la jihaado in lagu layliyo Allah subhanahu wa ta'ala wixii uu abuuray inay u hoggaansanto oo adoonnimada Allah subhanahu wa ta'ala aad xaqiijiso naftu baahiyo badan bay leedahay waxay cuntay u baahan tahay waxay cabtay u baahan tahay jirkeedu raaxu doonaya hurday doonaysa dana badan iyo baahiyo badan bay naftu leedahay adduunyo laakiin baahida ugu weyn hadii la waayana dib weyn qofka uu soo gaarayo oo si kasto loogu nicmeeyo oo adduunyada qaybaheeda kala duwan la siiyo qofku cidhiidhi iyo walwal iyo walbahaar iyo nolol xumaan uu ka baxay waa in waxa weeye qalbiga Allah subhanahu wa ta'ala lagu xidho qalbiga Allah subhanahu wa ta'ala inaanu ka jeesan fitnooyinka iyo imtixaanka socdana lala jihaado oo nafta laga badbaadiyo waxyaabaha laga badbaadinaya maxaa kamida waxaanu maanta ka hadalno kamida inuu qofku ku dadaalo xilliyo ilaahay mooyana cid kale aanay ogeyn inuu Allah subhanahu wa ta'ala hortiisa u sujuudo Allah subhanahu wa ta'ala isuduleeyo Allah subhanahu wa ta'ala uu bariyo xilli alla mooyana cid kale aanay waxa weeye ogeyn salaadaha faralkeenu tukanayno ee jamaca inuu ku tukanayno waa lagu wada arkaya degdeg baa lagu galaa waxa weeye iyadoo la degdegsan yahay baa laga yaabaa qofku inuu galo wuxuu tukadaya wax kale aanu kala ogeyn laakiin markaad habeenka qaybtiisa dambe aad waxa weeye soo kacayso allana subhanahu wa ta'ala aanu kugu waajibin xasuusasho Allah subhanahu wa ta'ala aad xasuusanayso hurdadaada iyo macaankeeda aad iska jarayso Allah subhanahu wa ta'ala aad la faqayso hortiisana aad istaagayso waxaad ogaanaysaa qofka iyo munaafiqnimo inay kala dheer tahay qofkaasi inuu yahay qof Allah subhanahu wa ta'ala uu xushay oo Allah subhanahu wa ta'ala uu xushay cibaadadiisa iyo adoonnimadiisa inuu Allah subhanahu wa ta'ala jaaniska noocaas waafajiyo inay tahay shay aad iyo aad u qiimo badan wuxuu leeyahay nabigu calayhi salaatu wa salaam qofka mu'minka sharaftiisu sharafna waa kelmad af Soomaaliya waa fahmayna sharafta qofka muslimka ah leeyahay qofka mu'minka ah leeyahay waa inuu habeenkii salaatul layl tukado weey wuxuu Allah subhanahu wa ta'ala tilmaamay adoomadiisa wan wanaagsan ee Allah subhanahu wa ta'ala amaanay ee tilmaamaha badan Allah subhanahu wa ta'ala uu sheegay waxa kamida waa kuwa habeenkii ilaahay ugu soo jeeda salaatul layl habeenkii ilaahay u sujuudaya ee Allah subhanahu wa ta'ala isu taagaya waxa Allah subhanahu wa ta'ala inoo sheegay dadka ahlul jannaha ah ee ilaahay jannaadkiisa uu galinayo waa dadka samaha iyo wanaaga sameeyay wanaaga ay sameeyeen wuxuu Allah subhanahu wa ta'ala ku tilmaamay habeenkii in badan oo kamida ilaahay inay u sujuudayeen oo Allah subhanahu wa ta'ala ay u tukanayeen waxa Allah subhanahu wa ta'ala tilmaamay dadka ahlul kitaabka ah inaanay sinnayn waxa kamida buu Allah subhanahu wa ta'ala dad habeenkii salaatul laylka u kacaya oo habeenkii akhriya kitaabka Allah subhanahu wa ta'ala ayaa waxa weeye kamida waxa Allah subhanahu wa ta'ala inoo tilmaamay inaanay sinnayn qofka Allah subhanahu wa ta'ala u cibaadeysanaya habeenkii isagoo aakhiro ka baqaya cadaabkeeda iyo cadhadeeda ilaahayna naxariistiis iyo jannadiisa filanaya qofka waxa weeye habeenkii salaatul laylka u kacaya iyo ka kale inaanay sinnayn ayuu Allah subhanahu wa ta'ala inoo tilmaamay nabi maxamed alayhi salatu wa salaam isaguna wuxuu tilmaamay fadaa'il badan oo ku sugan salaatul layl nabigu alayhi salatu wa salaam salaatul laylka ayuu joogteynay waa joogtay nabigu alayhi salatu wa salaam habeenkii inuu istaago ila cirbihiisu dildilaacan siduu u taagnaa suurada al-baqara la yiraahdo waa laba jus ya dheeraad
laba jusya barbay ku dhowdhowdahay ayuu nabigu calayhi salaatu wasalaam rakcad kaliya ku tukanay oo uu isla taagay nabigu calayhi salaatu wasalaam hal qiyaam ama hal istaag uu nabigu kula imanaya calayhi salaatu wasalaam siduu istaaga u dheeraynay ayaa nabigu cirbihiisu dildilaacayeen waxa lagu oranayaa nabi allah maxaad sidaa isugu dhibaysaa iyadoo la og yahay dambigaagii hore iyo kii dambaba labadaba in la dhaafay wuxuu nabigu ku jawaabay calayhi salaatu wasalaam afalaa akuunu cabdan shakuura miyaanan noqonayn addoon ilaahay u mahad celiya haddii dembigaygii hore iyo ka dambaba la dhaafay sheekadu ma aha inaan seexda ma aha ee fadliga waa inaan alle subxaanahu wa tacaala uga mahad celiya wuxuu nabigu inoo tilmaamay calayhi salaatu wasalaam ku dadaala salaatu leylka ku dadaala waayo waa dadkii wanaagsanaaye tegay caadadoodii iyo dhaqankoodii wanaagsanaa buu ka mid yahay waa dhowaansho alle subxaanahu wa tacaala loo dhowaanayo waxaa lagu baabiinayaa dunuubta oo dunuubtaadii baa lagugu dhaafayaa waxay kuu diidaysaa dunuubta cusub ee aad samaynayso ayay waxa weeye kaa ilaalinaysaa way adag tahay qofku habeenkii isagoo salaatuleyl u taagnaa iyadoo cidina aanay ogayn gudcurka alle subxaanahu wa tacaala uu la faqayay alle subxaanahu wa tacaala isu bihinbihinay inuu waxa weeye si fudud maalinkii dembi ugu dhaco waxa weeye aad bay u adag tahay haddii ay ka dhacdana waxa dhow inuu dhaqso uga soo noqdo walaalayaal xilligan aynu joogno oo aad mooddo inay inaga qaalib noqotay adduunyadii oo aad mooddo waxyaabaha alle subxaanahu wa tacaala iyo cibaadadiisa inaga mashquulinaya ay aad iyo aad u sii badanayso xilliyada noocaasa waxaynu u baahannahay acmaasha alle subxaanahu wa tacaala inuugu faral yeelay camalla ka badan oo aynu ku xaqiijinayno addoonnimada alle xaalkeenna aynu ku sii hagaajinayno xumaanta iyo fitnooyinka aynu kaga hortagayno inaynu waxa weeye ku dadaalaynu u baahannahay waxaa ku yimi bukhaari iyo muslim nabigu calayhi salaatu wasalaam habeenada ka mida istayqada madcuura nabigu isagoo naxsan oo argagaxsan buu hurdadii ka soo booday wuxuu uhi nabigu calayhi salaatu wasalaam ayqiduu sawaaxibaati alxujur maada futixa alleylata min alfitan maada unzila alleylata min alfitan wmaada futixa min alkhazaa'in nabigu markuu hurdada ka soo booday isagoo argagaxsan ayaa wuxuu nabigu ku celcelinayay maxaa xalay la furay waxa weeye khasnadaha raxmadda ee alle subxaanahu wa tacaala maxaa xalay fitnooyin la soo dejiyey dadka bini aadamkaa lagu fitnaynayo oo alle subxaanahu wa tacaala uu soo dejiyey muxuu nabigu ku taliyay calayhi salaatu wasalaam muxuu nabigu xaasaskiisa amar ku siiyey wuxuu nabigu calayhi salaatu wasalaam ka bilaabay ayqiduu sawaaxibaati alxujur faruba kaasiyatin fi dunya caariyatin fi laakhira hal la toosiya dumarka guryaha ku jira waa xaasaskiisii wey badana mid adduunyada ku labisan oo hu xidhan laakiin aakhiro qaawanaanaysa oo aan waxba xidhnayn camal wanaagsanna aan lahayn wuxuu nabigu calayhi salaatu wasalaam inoo tilmaamayaa fitnooyinka kala duwan waxyaabaha lagaga hortagayo ee qofku naftiisa ku ilaalinayo waxaa kow ka ah xilliyada muhimka ah alle subxaanahu wa tacaala inuu hor istaago oo salaatuleyl uu u kaco oo xilliga noocaasa uu qur-aan akhriyo waa waxyaabaha fitnooyinka lagaga badbaadayo hadda waxaa weeye soo ifbaxaya aadka u faafay markaynu walaalayaal qiyaamuleylka ka hadlayno qiyaamuleylku marka laga yimaado qalbiga alle subxaanahu wa tacaala inaad ku xidhayso marka laga yimaado abwaabta khayrka inuu kuu furayo marka laga yimaado abwaabta sharka iyo dembiga inuu kaa ilaalinayo ama kaa xijaabaya ama uu kaa hor istaagayo waxyaabaha laga helaya waxaa kaloo ka mid ah waxa weeye caafimaad badan buu qofku naftiisa ka helaya xasilooni badan buu dareemayaa raaxo badan buu dareemayaa wuxuu dareemayaa mu'min dhaba inuu yahay sida alle subxaanahu wa tacaala kitaabkiisa inoogu tilmaamayo inamaa yu'minu biaayaatina aladiin dadka iimaanka dhabtaa laga helay waa dadka waxa weeye ilaahay waxa weeye
usujuudaya ilaahay isu dullaynaya gogosha ka dheeraanaya markay seexdaan iyagoo alle subxaanahu wa tacaala baryaya waxaa tusaale kuugu filan habeen walba marka qaybtiisa dambe la gaadho alla wuxuu u soo degaa qaabku u soo degayana isagaa og laakiin waxaa inoo sheegay nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam xadiidka bukhaari iyo muslim isku waafaqayaan ee axaadiista ugu saxiixsan ka mida ilaahay samadan adduunyada dhow buu imanaya wuxuu odhanayaa yaa i baryaya oo aan baryada ka ajiiba yaa wax weydiisanaya oo su-aashiisa aan siiya yaa dembi dhaaf weydiisanaya oo aan u dembi dhaafaa bal suuradayso khiyaalkaaga tus allah subxaanahu wa tacaala oo kuu soo dhowaaday oo carshiga kaaga soo degay oo uu kuu yimi samadan adduunyada dhow oo adiga waxa weeye boos ahaan kuugu soo dhowaaday oo waxa weeye koo odhanaya waxaad ii weydiisato waa ku siinaya dembi dhaaf ii weydiisa waan kuu dembi dhaafaya i bari baryadaada waan aqbalaya oo alle subxaanahu wa tacaala ku leeyahay waa in salaatuleylka la isbaraa waa in nafta lagula jihaadaa adiga waxaa lagaa doonayaa inaad bilowdo haddii aad bilowdo alle subxaanahu wa tacaala waa kuu fududaynaya waxyaabaha salaatuleylka kuu fududaynaya waxaa ka mida maalinkii in la iska ilaaliyo dunuubta in la iska ilaaliyo oo habeenkii marka la gaadho haddii aad isleedahay xitaa dunuub baa kaa dhacday dhammaanteed waynu gafaynaa hadal dembiya baa inaga dhacaya ficil dembiyaynu samaynaynaa gaboodfalku waa dhacaya laakiin markaad habeenkii hooyanayso alle subxaanahu wa tacaala si guud dembi aad og tahay iyo midaadan ogeynba inaad alle subxaanahu wa tacaala toobad weydiisato inuu alle subxaanahu wa tacaala dunuubtaada kuu dhaafo wataa'ibu min adembi kaman laa demba lah ka waxa weeye dembiga ka toobad keenaana bilaa dembi buu ka dhigan yihi inaad weyse ku seexato alle subxaanahu wa tacaala aada xusto aada niyooto alle subxaanahu wa tacaala inaad u cibaadaysanayso inaad waxa weeye niyooto aada xasuusnaato fadliyadan aan tilmaamayo wax yar aan ka sheegay wakhtigu aanu ii saamaxayn fadliga ku sugan adduunya aakhiro inaad waxa weeye qalbigaaga ku soo xaadiriso waysana aad ku seexato ku talagasho ragcad keliyana ilaahay ha ka dhige inaad wuxun ilaahay hortiisa aad u sujuuddo inta aan salaada subax la gaadhin in waxa weeye alle subxaanahu wa tacaala la weydiisto inuu kuu fududeeyo cibaadooyin inuu alle subxaanahu wa tacaala kuu fududeeyo in la weydiisto oo uu kow ka yahay salaatuleylku oo uu kow ka yahay oo habeen alla haddii uu ku waafajiyo inaad weydiisato inuu alle subxaanahu wa tacaala kugu sugo walaalayaal waxaa kusoo gabagabaynayaa waxaynu xiliyadan dambe fitnadu badan tahay inuu aad iyo aad ugu baahannahay in kitaabka alle subxaanahu wa tacaala lagu xidhmo in kitaabka alle subxaanahu wa tacaala la xifdiyo in kitaabka alle subxaanahu wa tacaala maalin iyo habeen lala noolaado oo jaanis la siiyo habeenkiina lagu tukado maalintiina la akhriyo ayaynu u baahannahay wuxuu nabigu inoo sheegay calayhi salaatu wasalaam laba qof baa la majeertaa laba qof ayuunbaa la majeertaa cid kale lama majeerto yacni laba qof way istaahilaan qofku inuu jeclaysto sidoodoo kale alla inuu ka dhigo nabigu wuxuu tilmaamay rajulun aataahu allahu alqur'aan fahuwa yaquumu bihi aanaa'a alleyl wa aanaa'a annahaar midi waa qof alle subxaanahu wa tacaala qur'aanka uu baray maalintiina ilaahay buu ugu dhowaanayaa habeenkiina ilaahay buu salaatuleyl ugu tukanayaa qur-aanka inuu bartayna shardi ma ah way wanaagsan tahay inuu laabta ku hayo oo uu xifdisan yahay waa ta ugu wanaagsan laakiin waxaa ka horaysa qur-aanka inaad akhriskiisa taqaano carabkaaga aad ku laylido kitaabka alle subxaanahu wa tacaala akhriskiisa kitaabka xitaa inaad ka garanayso aad ku camalfalayso laabtaada uu ku wan yahay ta noocaasaa kowka ah waayo markaynu salaatuleyl aynu ka hadlayno qur-aankii waa hortila weeye in lagu tukanayo oo lagu cibaadaysanayo alle subxaanahu wa tacaala waxaynu weydiisanaynaa sida uu salaada jimca inoo soo waafajiyey inuu salaatuleylkana inoo waafajiyo uu inoo fududeeyo oo uu inoo sahlo
waayo waxaanu alla kuu fududaan mayso. ilaahay waxaynu weydiisanaynaa dadka habeenkii hor istaageen la faqa inuu inaga dhigo, allana subxaanahu wa tacaala uu ku farxa cibaadadooda ee uu soo dhoweeya alla subxaanahu wa tacaala ha inaga dhigo. alaa wasalluu wasallimuu calaa nabiyikum alamiin alladii amarakum allah bisalaati wasalaami calayhi